qaada qiimihiisa oo wax aanu u qalmin la keeno waxa sax ah in ay siyaasiyiinteena iyo cuqaasheenna iyo salaadiinteena iyo aqoonyahankeenu mar kastaba ay noqdaan fi kulli maqaamin lahu maqaal meel kasta oo la joogaba hadal baa ku haboon halkan maanta waxa ku haboon ducadii nabiga kaleey salaatu wassalaam ee ahayd ilaahay ha isu barakeeyo inanka iyo inanta iskuursaday oo dhexdooda ha ka beero ubad khayr qaba oo barakeysan hana ka dhigay dhexdooda sida ilaahay yiri mawadda wa rahma laakiin haddii qolooyinkii aan ku yara sayra maxaan ku dhaaf siyaasadda ay deeyigu deen waayeen waligay kaga hadal maanta ka hor maantana ka hadli may laakiin waa yara taabanaya reerkii halkan jooga daraad bay ahayd maalintii aynu ku jiray aanu yara dhaqdhaqaaq sameynay waxa aan uga qayb galay in aan wax ka barto dadkayga waxa iiga soo baxay laba arrimood qabyaalad gaadhay dhuuxa oo daadisay oo ay ka dhex timi nacayb iyo cadaawad maa anzala allahu biha min sultaan islaamnimada ka fog kana baxsan kana fog siyaasiyiinteenu waxa ay noqdeen qaar iyagu iskhilaafa ilaahay bana quraankiisa inoogu sheegay walilaahi yeela oo nabigiisa yeela oo ha iskhilaafina hadda iskhilaaftaan waydu fashilmi hadda fashilantaana waydu isuuri natiijaduna waxay noqonaysaa inqiraad ila baabo labada arrimood bay iga soo baxay oo aan markaan dib isugu noqday anugu aan dawadeeda yiri tolo maxaa lagu daweeyaa waxa aan ku iri niman xaafadaas oo aan wada joognay war waa qoslaysaan idinku halkaana waa laga cadhaysiyay tanna waynu wada joognaa qosol iyo cadho laba dhinac ka kala noolaad ka kala jirtaa macnaheedu waxa weeye nolol ma jirto war qosolka ula taga oo waxa ku qoslaysaan kaga qosliya oo ku soo noqda xeeradii rabbi subhanahu wa ta'ala oo inoogu amray nabigiisu inuu yiraahdo midkiina mu'min maaha oo iimaankiisu kaamil maaha inta uu naftiisa waxa uu la jecel yahay oo la jeclaanayo isagana maxaan ku raahdaa waxa walaalkii la jeclaanayo nabadgeliyadu waa bayska nolosha al-amn wal-iimaan iyada iimaanka ka horeysa cid qurada gaar ma ka mas'uul kama aha inay ilaaliso dhamaanteen mas'uul baynu ka wadanay nabadgelyadaynu maanta joognaa darrada aynu joognaa laba kelmadood ayaa u aasaasa war meesha 5 sanadood baa lagu doortay iskaga tag taariikhdu markay dhamaatana isu soo sharax haddii lagu doortana termka kala dhamayso number 1 period waa sharci iyo qaanuun aynu leenahay laakiin ka aan taa doonayni waxa uu keenaa feebis farbadan oo kale war waxa inoo qoro 10 sanadood ba inay mar furmaan axsaabtu way gaadhay waqtigoodii afurmaan ururadii halon looga hawlgalo sida ay u qabsoomi lahayd laakiin labada aayadood yaan madaxa la isula dhicin oo aan laga faa'iideysanin in uu qofku shakhsiga ahi isagu uu ku dul noolaado mujtamaca iyagana madaxa isula dhaco waarkiiseen wixii ka jiray baanti dhaweyto inooguna filan maxaan ku raahdaa wacd iyo waciid 100,000 oo caruuraba maanta gelay maxaan ku raahdaa iskuulada reer baa ila jiiraan ah laba caruura u gelayay reerkaasi caruurta iyaga iskuulka ka bixiya war reer liita oo tacbaan ah maanta waxa u diyaar garoobeen in ubadkoodii ay atan gareeyaan maxaan ku raashay shahaadadii imtixaankii shahaadada hadii maanta uu dhici lahaa mudaharaad miitigi lahaayeen wala ana barlamaanka tagi lahayn wala qodax ba tagi lahaa wala halkan fadhiyo lahayn waynu wada leenay bahalka ayaanan anna mucaarad noqonin oo ala kayfkayga u qaadanin
ninkii ugu horeeyay halkan joogay agaasimaahana yaanu noqonin mutaxaddis ku ah dawladda oo yaanu isaguna indhabeelin anna aan indhaha furo isna indhaha furo waxaanay ku wanaagsanaysaa annaga ilmaadeerahe war maxay naga maqan war maxaynu dadka ka qaadanay waxaasay naga maqanayno xaq u doono war waxaasaynu dadka haynaayeen xaq u siino sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam